fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wacan wanaagsan saaxiibayaal, meel waliba waad maanta caalamka ka joogtaan ku surwaada maanta iyo wararka ugu waaweyn sportiga iyo suuqa isugu ciyaartooga. waxaanu ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha warbixinadii ugu dambeeyay. maanta ciyaaruhu aadka looga hadalhayo uu qayb ka yahay finalka Europe League oo caawa la ciyaarayo, waliba Arsenal iyo Chelsea oo caawa midkood madaxa ku dajisan doona koobka kanu khamiisleyda ah. waliba waxaanu soo qaadan doonaa warbixinadii ugu dambeeyay Chelsea iyo Arsenal laga leeyahay. ciyaartooga Chelsea oo wacad ku maray inay burburin doonaan dabaaldega ay sii qorshaysteen kooxda Arsenal warkeeda weyna iyagoo aan finalka Europe League ku guuleysan, iyagoo aan koobka Europe League ku guuleysan bay waxay sii cadeeyeen halkay koobkaas ugu dabaaldegi lahaayeen. ciyaartooga Chelsea waxay leeyihiin waxaan nagu qasaba inaanu baabi'ino caawa dabaaldega Arsenal diyaarsatay. arrimo kale oo xiiso badan baanu soo qaadan doonaa. maxaa ka soo kordhay ceerintii Falfardi, xitaa Barcelona waxay soo qaadanaysaa Neymar iyo qodobo kale baanu ku soo qaadan doonaa maanta oo ku jiro Hazard oo Real Madrid heshiis bal la sii gaaray iyo arrimo kale oo xiiso badan oo Ramos uu ku jiro. bal warkiyo faahfaahsan. bal maanta waxa aad loo hadalhayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee tartanka Europe League. wallahi Arsenal iyo Chelsea koobkii khamiisleyda wax kale inooga dhigeen ka war. taageerayaashoodii waxay ku baashaalayaan oo xaflado ku dhiganayaan Baku, Azerbaijan oo lagu ciyaarayo tartanka Europe League. war koobkii khamiisleyda bariyaan saan uma xiisa yeelan ka war. war waa kaanu lahayn khamiisley, kaanu lahayn baaba Jamil Ligoobay maxaa dhacay? labada kooxood ba tartankan wax kale inooga dhigeenba finalku. wallahi caawa la isku hayaa. ciyaartu waxay soo gali doontaa 10 habeenimo caawa. Arsenal waxa qasab ku ah inay tartankan ku guuleystaan si ay u soo galaan Champions League. labada kooxoodna xilli ciyaareedku wax koob ma haystaano, mid kasta wuxuu u baahan yahay inuu madax degsado. caawa madax shubto. Arsenal inay madax shubata waa rabtaa, Chelsea sidoo kale inay madax shubata waa rabtaa, yacni madax degsato. saliidu marka madaxa lagu rusheeyo waa lagu madax degsadayay. labaduba caawa koob bay u baahan yihiin. 10 habeen bay ciyaartu soo gali doontaa. intaan kale iibsiga iyo meelaha kale aanu eegin waryaam waanu ahayn saaxiibayaal inaan u cimaamadno caawa kuwa finalku ciyaaraya. hadda waxaan eegi doonaa warbixinada ugu dambeeyay ee caawa finalka laga leeyahay. waxaan ku horumarayaa dhanka ciyaarta iyo waxa laga leeyahay caawa ciyaarta tan ee weyn. Chelsea waxa qatar ugu jireen inuu ciyaartan u ciyaaro N'Golo Kante. tababaraha hadle wuxuu yiri rajada Kante uu caawa ku ciyaari karo kulankan waa konton boqolkiiba. ama uu ciyaari karaya ama ma ciyaari karo. in lagu soo bilaabi doono inuu keedka noqon doono. laakiin Zari wuxuu cadeeyay caawa Kante ciyaartan uu ka maqnaanayo. wuxuu yiri problem weyn bay ugu tahay aniga, dhibaato weyn baan ku sugnahay uu leeyahay haddaan caawa Kante noo ciyaarin. rajadiisana aad buu mugd u geliyay. wuxuu yiri waa konton rajadiisu. rajadu noogu ciyaari karo waa konton buu leeyahay caawa. yacni waa wax aad u yar inuu ninkan caawa ciyaari karo. haddaanu Kante weyn uu leeyahay caawa waana loo yaabayo rajadeenu ma fiicno uu leeyahay. yacni dhibaato weyn baan ku sugannahay iyadoo midkii dheeraaye geelo gulaal waa dhirka badnaaye left checkna uu isaguna dhaawacan yahay. Arsenal caawa marka hore waxa uu muhiimsan horta koobka inay qaado ka hor intaysan booskooda Champions League cadaysan. waliba ninkan Zari la yiraahdo 60 jira weligiis kuma guuleysan tartan weynba, halka Arsenal ay doonayso iyana inay ku guuleysto caawa koobkan. maxay la waxay wadataa tababare ku takhasusay koobkan oo PhD ka wata oo banooniga ah. maxaa yeelay 2004 ilaa 2006 isaga ku guuleysanay tartanka Europe League markuu Sevilla joogay 3 sano Europe League xiriir baa loo qaaday ninkan, halka uu ninkan la yiraahdo Zarina aan weligii koob weyn ku guuleysan. kanuna 3 xiriir buu koobkan soo qaadayo. Europe League waa koobka ugu jecel yahay inuu qaaday u badan tahay. xilli Chelsea koobkan Europe League ku guuleysatay sanadii 2003 ayaanu Arsenal ku guuleysan tartan Europe ah tan iyo 1994. waa muddo 25 sano ayaan Arsenal ku guuleysan tartan Europe ah. markaasna baaran bay ka qaadeen marka muddo 25 sano kadib ay caawa raadinayeen Arsenal tartan Europe ah. koobkaas ma baynu qaadin tan iyo muddo 25 sano ahba. kan wuxuu noqon doonaa kulankii macsalaamada ee Patrick Schick. tan kale waxa la isku hayay waxay tahay miyay caawa Chelsea baabi'in doontaa dabaaldegay Arsenal sii diyaarsatay. Arsenal warkeeda weynaahay Allah oo Chelsea blockade ma ka dhigaysaane oo Chelsea koox maahan miya. waxaad keenteen sheekadii Real Madrid baad keenteen. Madrid baa sanad dhaweyd maray Champions League ay semifinalku markay Roma ka badiyeen waxay sii qorteen koobkoodii ay ku guuleysanayeen. Real iyadoo aan finalkii Liverpool aysan la ciyaarin bayba ay sii qorteen koobkoodii 13aad. waxa loo fahmay kibir Real Madrid ku jiray oo ah iyagoo aan finalkii ciyaarin bayna koobka sii qorteen. waray ka qaadeen Liverpool. Real Madrid dib badnaahe ya finalkii oo aan la gaarin
oo aan la ciyaarin bay lambartamay saddex sii qorteen yacni ba loo fahmay inay sii kusii guulaysteen bay sii cadaysteen tartanka Arsenalna shalay waxay sii cadeeyeen in maalinta Khamiista xilliga maqribka ay magaalada kusoo wareejin doonaan koobka Europa League oo ay buuliya xataa qaadin yacni waxay sii diyaarsadeen London inay ugu dabaaldegi doonaan koobkan waxay sii cadeeyeen halkay ugu dabaaldegi doonaan koobka Europa League markay kusoo guulaystaan koobkii oynan qaadin bay waxay sii cadeysay Arsenal dabaaldegayna baabuurta aan koobka ku soo bandhigayno Khamiista u dhici doona saacada maqribka u dhici doona yiraahdeen arikaas Chelsea waa ka yaabi Chelsea ma wariyay Chelsea West Ham miya mise Burnley waa mise waxa weeyaan ilmo yar weeyaan war maxay tahay waxa sameynaysan Arsenal finalkii oynan caaw ku guuleysan bay Arsenal waxay sii cadeysatay koobka meesha ugu dabaaldegi lahayd macnaha isku haysan ay leeyihiin macnaha koobka inaan qaadnay ee meeshan ugu dabaaldegi lahayn baan sii cadeysanayna arwarkooda weynaa Arsenal haddaba ciyaartooyga kooxda Chelsea arinka ka hadlay waxa kamid ah ninka la yiraahdo Azpilicueta kabtanka kooxda Azpilicueta wuxuu cadeeyay inay caawa isku dayayaan wax walba oo Arsenal ugu baabi'in lahaayeen ama ugu baajin lahaayeen ama ugu joojin lahaayeen riyadooda ah inay koobka kula soo wareegaan magaalada London wuxuu yiri waan ka warhaynaa waxay sii qorshaysteen dabaaldegooda koobka laakiin waxa nagu balan buuro caawa oo aan rajaynayna inaan baabi'ino dabaaldegooda oo Arsenal la miya Arsenal runta marka laga hadlo habeenka caawa aad bay u qatar badan tahay walow Arsenal ay tahay habeen bay Arsenal kacsanta habeenkeeda haduu caawa yahay Chelsea waa loo yaaba baryaanu Chelsea dhaawacin waa iska jiraayo Chelsea din uma ehka laakiin waa iska Chelsea qatar weeyaan furbo weeyaan Talyaani ba wato waxa laga yaaba Arsenal in laga hoos bixi waa laga yaaba laakiin ciyaartu caawa loo simeeyay waxay noqon doontaa markii labaad oo taariikhda laba kooxood Ingiriis tartanka Europe ee Europe League ay soo haraan final ama markii koobkii hore loo oran jiray UEFA Cup waxa markii ugu dambeysay laba koox Ingiriis soo haray ahayd Tottenham iyo Wolves UEFA Cup ay ahayd 1972 kuwan waa kuwa labaad oo Ingiriis ah oo final wada ciyaari doona waana tartanka UEFA Nation League oo tartanka Europe League ee loo oqoon jiray UEFA Cup kulanka caawa wuxuu noqon doonaa kulankii 198 oo dhexmara labada kan kooxood Chelsea iyo Arsenal laakiin waa markii saddexaad ay ku kulmayaan tartanka Europe taariikhda hore waxay u kulmeen labadan kooxood 2-3 markay ku kulmeen wareegga sidamaadka Champions League markaasna Arsenal ayaa la reebay oo Chelsea baa soo baxdo 3-2 gool ku soo baxday kan wuxuu noqonayaa kulanka lagu ciyaaray tartan walba FA Cup finalku labadan kooxood hadda koor way ciyaareen League Cup finalkooda way ciyaareen caawana tartan Europe finalkooda way ciyaarayaan Chelsea Arsenal waa kulankaas saddex final oo saddex tartan oo final kala duwan ba lagu ciyaaray FA Cup way ku ciyaareen League Cup wala European Cup aba tartankan caawa tartan Europe oo uu kamid yahay kan Europe League ah waxaana uu finalku caawa noqonaya markii saddexaad oo laba kooxood oo isku wadana ay soo harayaan finalka Europe League hore waxa uu dhacday Porto iyo Braga 2010 isla yimaada final Atletico Madrid Atletico Bilbao waxay soo yimaadeen 2012 ogoon labadan kooxood Arsenal iyo Chelsea xilli ciyaareedkan 11 ciyaarood ay Europe League wada badiyeen mid kastaba Azerbaijan waxay caawa noqonaysaa dalkii 24aad oo kala duwan oo tartanka Europe finalkiisa lagu ciyaara waana sanadkii saddexaad oo xiriir ah dal uu martigelinay markii ugu horeysay final tusaale ahaan Wales markii ugu horeysay sanadkii sanad dhaweyd finalka Champions League lagu ciyaaray 2006 Ukraine markii ugu horeysay baa lagu ciyaaray 2007 Azerbaijan wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay final lagu ciyaaro laakiin waa dalkii 24aad oo kala duwan taariikhda tartanka Europe finalkiisa lagu ciyaaro Arsenal nasiib ma lahan ayaantan Arsenal waa laga qaaday 4 kamida 5 jeer ugu dambeeyay finalada Europe ay soo gaareen markii ugu dambeysay Arsenal ay tartan Europe ku guuleysata waxay 1994 laakiin Arsenal way luminayeen wixii ka dambeeyay koobka Europe ay final imaanayeen tusaale ahaan 2000 UEFA Cup ka final imaadeen waa laga qaaday Champions League bay sidoo kale imaadeen waa laga qaaday xitaa 95 baa ku jirtay marka Arsenal 4 kamid ah 5 final ay gaartay waa laga qaaday oo tartan Europe ah halka Chelsea ay ku guuleysatay 4 kamid ah 5 jeer final ee weyn ay gaareen oo Europe ah marka Chelsea ayaa u leeyahay final marka la joogo iyaga ugu qatar badan haddii uu caawona Emery koobka ku guuleystay wuxuu noqon doonaa macallinkii afaraad ee tartanka ku guuleystay wax badan waliba la qaaday laba koox oo kala duwan sidan waxa sameeyay Giovanni Trapattoni Juventus Inter ku qaaday Jose Mourinho Porto United ku qaaday Rafa Benitez Valencia Chelsea ku qaaday asagu wuxuu noqon doonaa macallinkii afaraad oo tartanka ku qaaday laba kooxood oo kala duwan horeyna Sevilla ayuu ugu soo qaaday ogow 8 gool ugu dambeeyay Arsenal ay dhaliyeen oo ka dhaliyeen tartanka Europe waxa dhalinayay midkood Aubameyang ama Lacazette waa labadan ugu qatarta badan labadan kooxdan ay haysato kanu 4 buu dhaliyay Lacazette kanu 4 buu dhaliyay ogow Arsenal labadan bay haystaa aad u qatar badan laakiin Chelsea ma la yeelsa karo iyo iyagu xataa shuruud bay haystaan oo 10 gool dhaliyay xilli ciyaareedkan maalin hore niiri Arsenal anigu dhiigayga waa Chelsea oo yiri iska kay jira finalka iska kay ilaaliyo leeyahay Marussia Sarina wuxuu noqonayaa macallinkii ugu horeeyay oo Talyaani ah oo yimaada tartanka European League finalkiisa
tan iyo 1999 markaasuu Alberto Melazani uu yimaaday finalka walibana uu koobka la qaaday Parma laakiin labadii tababar ugu dambeeyay oo kooxo Ingiriisa maamula ee finalka tartan Yurub yimaada waxay ahaayeen kuwa Chelsea soo tababaray waxay ahaayeen Gianluca Vialli oo Chelsea la qaaday 1998 koobka kan isagoo nin Talyaani ah sidoo kalena waxaa Roberto Di Matteo ba Chelsea la qaaday Champions League 2012 labadii tababar ugu dambeeyay Chelsea ee Talyaani ee maamulay koobka ay final la yimaadeen way la qaadayeen oo Yurub ah midna Champions League buu qaaday midna wuxuu qaaday Cup Winner Cup buu qaaday oo kanuna waa macallin kale oo Talyaaniyaashu waa fajistayaal waa Qatar Chelsea koob bay la qaadi jireen labadii isagu ku horeeyay tababar Chelsea soo maro Talyaani ah tartanka Yurub way la qaadayeen intaas waa taariikhaha haddaba isla ciyaaraha caawa waxa quseeya Lacazette wuxuu leeyahay kaba Maseri uu leeyahay saaxiibkii Aubameyang oo ku guuleystay kabta goolinta ee horyaalka xilli ciyaareedka kan isaga iyo Salah ba isla qaadaya Mane wuxuu leeyahay saaxiibkii waan ku qanacsanahay ka garab ciyaaridiisu kaba Maseri uu leeyahay inuu gool badan dhaliyo asagu wuxuu dhalay ninka kan uu gool yaro iska 13 gool ah wuxuu yiri kama Maseriya waxa noo danan labadeena inaan kooxdu wada qaadno oo koob ku wada guuleysan laakiin ciyaarta caawa ka hor ciyaartoy ka tirsan Chelsea ba isku dhacay iyadoo Zari xataa isagoo cariisan uu ka baxay xirada tababarka kooxda Chelsea ee Baku ay ku tababaranayso ilaan tababarku waxa isku dhex dagaalay ninka la yiraahdo David Luiz ee Higuain ba isku dagaalay oo qallaas ku dhex maray taas oo keentay Zari inuu koofiyada iska tuuray kadibna markuu dhulka ku tuuray haraanti ku sii gamayo wuxuu ka cariisan yahay ciyaartooygiisa xilliga is dagaalayaan xilli ay rabaan caawa inay ku guuleystaan koobka Yurub ay haddana labadii nin is dagaalayaan Zari arka aad ugu cariisisay wuxuu war kuwan nervosa iga dhigayaan buu leeyahay war annaga caawateen in haystaayo to kale ugu darayaan Zari tababarku car ugu baxbaa leeriyo kadib markuu ay labadan inuu tababarka isku dhex dagaalaya iyadoon ognahay ma khatire in loo diiday inuu yimaado Azerbaijan oo finalka lagu ciyaarayo sabab ku aadan Azerbaijan inuu dagaal kala dhaxeeyo Armenia uu ninkan ka dhashay ay haddana waxa shalay la arkay booliiska wadanka uu joojinaya ragga wata fanaanada Mkhitaryan kolba waxay u maleynayeen Mkhitaryan oo arika aad bay u yaabisay dadku ugu yaabisay askar bal arkay iyagoo celinaya taageerayaal Arsenal oo fanaanada Mkhitaryan dush ugu qoran tahay wata kadib askartiiba waxa la arkay inay joojiyaan taageerayaasha Arsenal ee fanaanada Mkhitaryan watay kadibna waxa la arkay iyagoo telefoon ku hadlayo kolba lagu yiri wareey iska siiday kolba Mkhitaryan kama ahane kolba waxa loo maleynayeen in Mkhitaryan ka uu Azerbaijan yimaaday ay u fahmayeen taageerayaasha Arsenal markii la celiyay kadibna waa la iska fasaxayo askar ayaa la arkay iyagoo joojinaya taageerayaal Arsenal oo wata fanaanada Mkhitaryan oo wallow Mkhitaryan aanu imaanin Azerbaijan oo loo diiday inuu ciyaarta ciyaaro dagaal la cadartid ama nafsadiisa la badbaadinayo haddana waxa la arkay booliisku xataa inay qabanayeen dadka fanaanada Arsenal wata ee Mkhitaryan ugu qoran yahay kolba waxay maleynayeen armo Mkhitaryan ka bayay islaayeen waana taageerayaashii wallow ay iska fasaxeen mar dambe laba xirin taageerayaasha ka ee fanaanada Mkhitaryan watay Arsenal iyo Chelsea caawa ciyaaraya dagaal weyn ba u soo dhexay labadan kooxood iyo qisooyin badan ba u dhaxeeyo kaanu hadalgiisii taariikhiga ah marka oo Chelsea intay laba ku hormartay saddex uu isagu ugu bedelay 15 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta ayaa kamid ah taariikhii Arsenal xusuusta badnaa iyo Chelsea waxay ku 1999 marka uu Chelsea intii laba gool ku hormartay uu kaanu waqti dambe oo nin Nigerian uu laba gool dhaliyo maalinka oo la bartay tabintii caanka ahayd Martin Tyler ee ahayd Can you believe it ومد كميدا تبينادي ugu jeclaayeen Arsenal marka uu kaanu saddex ugu bedelay Chelsea labadii gool ay hormartay wixii markaa ka dambeeyay Chelsea lagu saddexdii waxa la wareegay Abramovich dagaalkan waa si adkaaday labada kooxood Mourinho buu la yimaaday xilli ciyaareedka ugu hore ku guul dareystay Abramovich inuu koob qaado kadib waxa jiray Mourinho uu yimaado isku magacaab inuu yahay special one dadkiiba ka yaabsaday Premier League buuna ku qaaday Arsenal hortooda ku qaaday isagoo 12 dhibcood ka sareeyay dagaaladii labadan kooxood xitaa waxa kamid ah Ashley Cole oo dagaal dhaliyay buuqna dhaliyay markii uu Arsenal ka tagay Chelsea ku biirayo wuxuu ahaa heshiis xanuun badan oo Arsenal xanuun ku riday waxa jirtay dagaalka u dhaxeeyay Mourinho iyo Wenger oo qoorta iska qabteen oo ay isjiijideen labadii oday ee waaweynka ahaa dhan kalena Unai Emery wuxuu leeyahay waan ku kalsoonahay uu leeyahay ninka la yiraahdo Jack Caaw waan ku kalsoonahay kalsoonideeda baan si maxay asagoo nin gentleman buu leeyahay yaani ma dhacayso wararka laga qaba hadii Caaw la safo gool buu deedeynaya iyo Chelsea uu imaamadaya ilaa Chelsea baa xil u magacaabi doonta ninka markuu Caaw ka tago kooxdan Arsenal uu ka duqoobo marka wuxuu leeyahay Unai Emery waan ku kalsoonahay kalsoonideedana waan siiyay buu yiri Jack maxay la waa nin gentleman buu waxaan kuma kacayo Unai Emery wuxuu cadeeyay Caaw inuu doonayo in koobka Caaw lagu sagootiyo ciyaartooyga kala ah Aaron Ramsey Patrick Schick iyo Dan Welbeck oo kulku ugu dambeeyay Arsenal u joogi doona kadibna ka tagaya inta wax walba ku saabsan kula ka Caaw waxba la caroorinaya dadkan final bay ciyaarayaan haddaan kabtii karinta ka dhigan iska soo koobeyna waxyaabaha kale ku saabsan ciyaaraha kale Caaw maxay yeelay muhiimadu waxay tahay maalintu wax ugu weyn ee la hadal hayabaan in badan xooga saarna annaga hadday tahay sheekada maanta ugu muhiimsan ciyaartooyga ugu muhiimsan suuqa ugu muhiimsan final baan ka hadlaynaayo wariyaahe kuwa khamiisleyda ah waxaanu soo kuurkuurinay xilli ciyaareedka dhan baan soo kuurkuurinay final bay ciyaarayaan miyaan u haynin aanu cimaamadno waanu cimaamadaynaa wariyayaan la kuurkuurin niman kanu
ciidamadooda maanta iyaga iskale final bay ciyaarayaan caawa waan arki doonaa cidda ku guuleysata Arsenal waa bootaysayo wayba sii diyaarsay dabaaldega meesha ku dhigi lahayd Chelsea waxay leedahay waan burburin doonaa dabaaldegooda wararka ugu waaweyn maanta ciyaaraha waxa kamid ah arimihii ku aadanaa Barsho inay ciirinayso tababarada lagu magacaabo Falfardi ayaa wax ka soo kordheen xalay waxa la soo wada qoray wararka ku aadan in Falfardi uu baxayo laakiin saaka wax badan baa isbedelayo waxa la ogaaday Falfardi kadib markay madaxda Barsho go'aan ay qaateen oo xataa go'aanka qayb ka ah Messi waxa la go'aamiyay Falfardi inuu sii joogo kooxda Barcelona oo xil ciyaareedka dambe uu sii joogo tababar u noqdo wareer Barcelona Sandero waa idin sii joogaya go'aan cad weeyaan baa la leeyahay ninkan wuxuu taageero ka yahay madaxweynaha Barcelona Jose Mario Bartomeu sidoo kalena wuxuu kalsooni ka haystaa oo taageero ka haystaa ciyaartooygu qayb ka yahay Messi oo kabtankii kooxda ah Gerard Piqué Jordi Alba iyo Rakitic marka waa kayo Sandero idin la sii joogi doonaayo warka ugu dambeeyay Barcelona waxay leeyihiin Falfardi waa la ansixiyay waana sii joogayaayo madaxda kooxda iyo ciyaartooygu waxay isku raaceen Falfardi in la sii siiyo kalsooni uu sii joogo kooxda kadib laba horyaal iyo dalreey uu la qaaday kooxda marka Falfardi waa sii joogaya 24 saacadood oo wareer baa soo martay Barcelona oo ah tababaraha bedeli doona ninkan in isagu la ceelinayo laakiin asaga waa joogaya baa leeriyo bedelkiisa rag badan baa loo raadinayo kamid ahaa tababaraha Belgiumka Roberto Martinez Koeman iyo kuwa kale oo ku jira Ten Hag oo Ajax laakiin warka loo yaab la soo baxay Barcelona waxay dib ugu soo noqotay la wareegida ciyaartooyga Neymar warar ayaa waxay sheegayaan in Barcelona ay doonayso in ay midkood ku bedelato Neymar ciyaartooyga lagu magacaabo Ousmane Dembele ama Coutinho Ousmane ay doonayaan lacag inay ku bedeshaan Neymar ama waxay doonayaan Coutinho lacag inay ku bedeshaan Neymar bay doonayaan inay Barca soo celiso maxaa yeelay tani markuu Neymar baxay Barca wax ma qaadin maxaa Neymar wuxuu xoojinay safka Barcelona Messi dagaalka macnaha Messi wuxuu ahaa mid markaa nasanayo mar Neymar dhalnay mar Suarez dhalnay laakiin hadda asay wax lagu soo aruureen asaguna waa iska ilmoolow bariyahan waa duqoobaya marka hadda waxay warar ku leeyeen Barca xitaa waxay soo rogaal celisay doonisteedii Neymar waxaanay rabaan in midkood ay ku bedeshaan Ousmane Qabar ama Philippe Coutinho marka Barca inay Coutinho inay soo dalbatay Neymar oo wax iska cad baa la leeyahay oo dib u raadinayaan محمد صلاح wuxuu cadeeyay inuu sanadkan rajaynayo ku guuleysiga Champions League kadib markuu sanadkii hore riyadiisa ay burburtay waxaanu cadeeyay inuu doonayo marka inuu ciyaaro 90 daqiiqo kadib sanadkii hore uu kala jabiyay ninkii Ramos ahaa wuxuu leeyahay finalkan muhiim ayuu yahay waxaan rajaynayaa inuu 90 aan ciyaaro waxaan rajaynayaa inuu gool laliyo waxaan rajaynayaa inuu Liverpool koobka Champions League u qaado xitaa wadankayga koob Afrika uu qaado leeyahay Maxamed Salah warkiisu waa cad yahay Liverpool ayaa kuwa ugu cadcad walow kamal daariguna calaamad iska yahay wax kasta dhici kara Carvajal wuxuu codsanayaa in madaxweynaha Real Madrid iyo Ramos ay go'aan cad gaaraan maalmaha soo aadan hadii Ramos u baxay hadii kale laakiin waxaan jeclaan lahaa buuri in labaduba ay ka soo baxaan go'aan fiican oo ah in Ramos uu la sii joogo xagaaga dambe ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Carvajal laakiin waxa iska cad Real Madrid inay fasaxayso ninka la yiraahdo Ramos sida Ronaldo oo kale hadii ay ku helaan dalab fiican ama lacag fiican ay ku helayaan Ronaldo ayaa sanadka hore lacag loo soo bandhigay kadib markuu kooxda codsadayna waa la fasaxay hadda Real Madrid waxay diidinta un baa leeyahay mooyaane in ninka free ay ku fasaxaan ay diidan yihiin mooyaane hadii Madrid lacag loo soo bandhigo way fasaxayaan baa leeyahay Ramos arninkan barays ahaa وراموس بان ku hadlayna ka war buu leeyahay hatta ha joogo hatta ma dhahay ka war hanoo joogo waan cishanaynaa halkoos hanoo joogo hatta ma dhahayo wuxuu leeyahay waa la soo dalbaday laakiin free kuma fasaxayno hanoo joogo hatta ma ka war lacag leh la sii waa iska bixuu leeyahay Madrid ma doonaysa leeyahay hatta in shis ay ka siixdo ninkan la yiraahdo Ramos hadii lacag ay ku helaan way fasaxayaan bal leeyahay walow Ramos ku soo noqday Falade halka uu tababar ku sameynayo waxaanu bartiisa ku soo qoray Hala Madrid waxa uu ku tababaranaya xirada Madrid waxa halkiisa loo fahmay xogaa marka inuu soo dagayo odago waraagu iska yareynayo iska sii joog karay Madrid maxay yeelay waxa la arkay isagoo ku tababaranaya Faladables oo xirada tababarka Madrid waxaanu bartiisa ku soo qoray Hala Madrid xogaa taas rajiyar bay gelinaysaa weerar taageerayaasha inuu kabtanku sii joogo warna waxay leeyihiin Real Madrid waxay heshiis la gaartay ciyaartooyga Hazard 115 milyan bayna kula wareegayaan baa leeyahay Chelsea iyo Madrid heshiiska way gaareen baa leeyahay waxaana warkaas soo warinaya warbaahinta ugu weyn England oo dadsan ku jirto waxa leeyahay ninka 115 milyan baa lagu wareegay Real iyo Chelsea waa heshiyeen asagoo xataa toddobaadkii waxa la siin doonaa 400 oo kun marka dasan waxay leedahay heshiisku waa dhacayo kulanka caaw baa la sugaya kadibna Hazard wuxuu ku biiraya kooxda Chelsea warkaas waa cad yahay yani Chelsea uu ka tagay Madrid buu caaw ku biiray heshiiskan waa dhacay xataa mushaharaadkiisa waa la cadeeyay lacagtu ku wareegay waa la cadeeyay Hazard waa galbaday Chelsea waxay u badan tahay in Frank Lampard ay tababar ka dhigi doonto hadii uu ka tago kooxda Mauricio Sarri waxay u badan tahay Chelsea in Frank Lampard u magacaawi doonto kadib caawa haduu Sarri markuu ciyaartu dhameysto uu bax kadib laakiin Chelsea waxay warar ku leeyihiin shaki yar baa ugu jira Frank Lampard waxa laga yaabaa in ay Laurent Blanc xataa tababar ka dhigaan laakiin Frank Lampard waa cadcad inay tababar ka dhigaan walow aysan xoog ku kala sooreen heerkiisa maskaxeed iyo heerkiisa khibradeed ee uu ka qabo tababarnimada maadaama dhawaan uu bilaabay Neymar waa kan dhaawac ka bixilayahay iyadoo Copa America uu dhawaan bilaabanayo waxa la arkay shalay Neymar oo tababarka Brazil ka baxaya kadib markuu dhaawac ka soo gaaray dhanka jilibka ah
dhawaan bay ahayd shalay markii laga qaaday kabtanimada kooxda haddana waxaa uu dhaawac adag baa sii gaaray oo Brazil iyo Jabba ku dhacay leeyahay dhaawacyada soo noqonaya Neymar ku aadan tababarihii hore kooxda Chelsea Villas-Boas ayaa loo magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta Marcel Lukaku-na waxa leeyahay 2 isbuuc ka hor ayuu tagay magaalada Talyaaniga waxaanu heshiis la galay baa leeyahay kooxda kubadda cagta Inter Milan hadda wuxuu dhimayaa mushaaraadka faraha badan ka qaato Manchester si uu inta ugu biiran leeyahay heshiis baana jira leeyahay Inter uu la sii gaaray ciyaarihii waa naga intaa